It's the same plane. Yes, sir. Okay, sir. Thank you for coming, sir. your time ciidamada waxaa farxad weyn ii ah anigoo ah wasiirkiina gaashaandhigga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed maanta inaan qayb ka noqdo ama goobjoog aan ku noqdo dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil xigeenno runtii fursad qaali ah helay أنا هلين dhalinyarada kale ku nool dalka waxaad hesheen aad iyo aad u qiimo badan runtii haddii laga faa'iidaysana aad iyo aad u qiimo badan waxaan u imaaday shaqo badana ii taalla sababta u imaaday waxay tahay inaan fikirkayga idinku biiriyo ayadoo go'aanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre go'aanadooda ugu horeeyay ay yihiin in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la dhiso oo dalkaani uu ku soo laabto siduu ahaan jiray si ka fiican anigana maadaama nasiib aan u helay anigoo ka mid ah dhalinyarada ummadda Soomaaliyeed fursaddan qaaliga aan helay waxaan diyaar u ahay in ciidanka la dhiso haddii dalkeena uu noo hagaago markaas ayaa wax ku faanna haysanaa dalkaan aheenna ma haysano midka aan wax ku nahay maanta waa kan midka berrita ciyaalkeena wax ku noqonayana waa kan midka maanta aad sharafka cizadan aad ku leedihiin oo lidinku qaadayo waa dalkan midka aad ciyaalkiina ay higsanayaan waa kan maadaama dal kale aan heli karin waxaan u baahannahay qof kastoo annaga naga mid ah waajibaada ka saaran meeshu markaasi waajibaad kaga saaran inuu qabsado waxaan rabaa inaan idin la wadaago waajibaada idin saaran waxaa idin saaran sharaftii karaamadii caddii ummadda Soomaaliyeed ayaad wadataan magaca Soomaaliyeed ku socotaan ma socotid magaca qabiil ma socotid magaca shakhsi kale waxaa maanta diyaaradan aan u jeedaan qaaliga aad hesheen aan qofka kale Soomaaliga uusan helin inaad ilaalisaan inaad wixii leedan baraayo oo si fiican u soo barataan waxaad tihiin dadkii berrita dhalinyarada kale wax bari lahaa war fursadiina oo kale aan heli doonin qaarkooda dalka gudihiisana wax ku bartaan hogaanadaana jahwareer ka dhacay inaad hogaanada aad qabataan inaad ii sheeg fursadaha maanta ay hesheen dalkaani iyo dadkaani ummadda Soomaaliyeed aad uga faa'iidaysaan walaalayaal anigoo dhalinyaro ahaan idin la hadlayo waqtiga ha naga luminna waqtigii qof idinka mid ah lumiyo wuu naga lumiyo waxaa dhacday 25 qof inaan dirno 30 qof inaan dirno 28 qof 13 qof maanta isoo laaban rabo waa lii weydiiyaa war maxaa wax u dirtaan waxaad dirtaan ma soo laabtaan dhammaantiina baasboora idin wada jiray qaar idinka mid ah waxaan u soo xiray intii tababarka u xiraayay
qaar idin ka mid ah waa imaadeen wixii hore waa laga tegey markaad wax soo barataan meel munaasibkiina ayaa dalkan ka qabanaysaa noloshii hore ka fiicanaad helaysaa mashaarkii hore ka fiicanaad helaysaa waan soo laabanay marka haddii idinka oo kale aan dirno iyo kuwa kaloo idinku xiga intaan soo qaadna aan dirno ee kuwa kale aan sii dirno ay soo laaban waayeen nasiib daro hadday wax soo baran waayeen nasiib daro haddii annagana asad idinka dhigano adduunyadu waxaa looga faanaa beertu waa la beeraa laakiin sababta loo beeraayo inay soo baxdo lagu nafaqadeeda la helo qaranka Soomaaliyeed waxaad u tihiin beer waqtiyaa lidin geliyey waqti kale aan rabnay idin gelino waxaa la rabaa waqtiga dhow in laydinka faa'iido meeshii annaga inaan idinka faa'iidna aan rabnay haddaan dadkii la waayey ka waran dhibkeeda waxaan idinkala dardaarmayaa fursaddaan inaadan qaranka Soomaaliyeed ka luminin haddaad ka lumisaan aad u aragtaan in opportunity ama fursad kale inay tahay oo meel kale lagu aadi karo xaaran ay idinku tahay qaranka Soomaaliyeed idama cafinaayo wax allaalo wixii meeshaas kale marafica keeshaan waa wax rutiin maaha sababtoo ah diyaaraddaani qarashaa lagu socda annaga magaca Soomaaliya lagu soo tuursado hanu lagu kaalmeeyo wax maanta annaga aan bixinayna maaha laakiin waxaan rabnaa inaan asalkeeda aan helno aan idinkula dardaarmaya mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad walaalyaal inaada fursada idinkana iska luminin qaranka Soomaaliyeed yaa laga luminin intaas waa intaas anta kale aad iyo aad ay kaga baxdeen intaa waxaan u leeyahay waxaa horey loo yidhi faraska asigoo hordaaya ayaa waxa waaye la karbaasha waxaa loo karbaasha waxay tahay hasiib waa ognahay ciidankaad ka tirsaneedeen qaar idinkeeda ka mid ah waan ognahay dadka maanta soddonka meeshaan socda 99 qof ayaa soo apply gareysay 84 ayaa barnaamijkaas gashay 42 ayaa baastay markii jagaad la marsiyay 30 qof aan ka qaaday caafimaadkiina iyo capacity jirkiina iyo wax walba anaga soo qanacsan waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad diyaar u noqoteen inuu ciidanka dalka Soomaaliyeed aad u noqotaan oo dhiiggiina iyo dhaxalkiina aad ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed aad u daadisaan kaga mahadcelinaya waan idinku faanaynaa dowladda garabkiina insha allahu tacaala inta xagga joogtay iyo idinka iyo kuwa kala soo bixi doonaba aan qorsheynayna meesha aad tagi doonta waa idinka soo booqanayna dhibkiina iyo dheeftiina waxaan rabnay inay idala wadaan markaad soo laabataan madaxweynahana diyaar u yahay annagana diyaara u nahay horey buu sheegay inaad ii sheegay waxaad mudan tihiin aad meeshii aad mudan tihiin in la gudahay gacmahaas qabsan dalkan iduma maqna annaga ayaa u maqan annaga iskale dadka kale waa bari karnaa annaga aan isku tashanno aad iyo aad waan idinkaga mahadcelinayaa waxaa kaloo raba inaan u mahadceliyo walaalaheena Turkiga iyo Taajiga ee Turkiga iyo marahaba iyo guud ahaan dowladda Turkiga horeyna waa sheegay runtii waqti badan ayna geliyeen wanaag badan oo ay noo sameeyeen abaalkooda ma gudi karno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku baryaynaa beddelkooda inuu siiyo inuu dalkooda nabadgelyadeeda u siyaadiyo in dalkooda runtii jecel yihiin inuu yeelo aad iyo aad aan u mahadcelinaynaa Rajab Tayyip Erdogan iyo